قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات ana wanaagsan saaxiibada qiimaha badan ee ku xiran janaalkeena YouTube ee Nuxur TV ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub insha Allah muuqaalkan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qayb kamid ah taariikhda xayawaanaadka waxaan doonaynaa inaan janaalkeena ku soo siyaadino wax ka duwan wax ay ka hadlaan dadka kale ama wax ugu yar ee YouTuberada ka hadlaan oo ah xayawaanaadka waxaan rabnaa maanta inaan ka hadlo mid kamid ah taariikhda xayawaanaadka sida darteed saaxiibada waxaan ka codsanayaa inaad commentigiin hoos nooga reebtaan waxyaabaha aad jeceshiin inaad janaalka ku soo kordhino intaan muuqaalka u gudgelin waxaan idinka codsanayaa inaad janaalka subscribe saartaan gambalelka furtaan muuqaalkana like saartaan si uu dadweynaha kale u gaaro ugana faa'iideystaan قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر waa naflay naasale oo nuujisa waxay ka mid tahay dhirxagatada wayna daaqsataa waxay leedahay harag qiro weyn oo adag oogo aan dhogor lahayn iyo adimo gaagaaban waxay weligeed ku nooshahay gudaha iyo agagaarka webiyada Afrika ee hodanka ah jeerta kaliya waxaa laga helaa qaaradda Afrika magaca hippopotamus oo afka Ingiriiska lagu yiraahdo jeerta waxaa lagu fasiraa faras webi jeerta waa naasleyda saddexaad ee ugu weyn inta wax nuujisa kadib maroodiga iyo wiisha cad waxay badi waqtigeeda ku qaadataa gudaha webiyada iyo harooyinkooda jeerta badigeed waxay ku dhaxdhashaa biyaha gudahood inkastoo uu jeerta qiro weyn tahay haddana kama orod yara aadanaha jeerta waa xayawaanada ka mid ah kuwa aad ku camashooda kolka la maago inta badan marka daraasadaha la sameynayo jeerta waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah noolaha halista leh ee ku nool qaaradda Afrika jeerta wuxuu cimrigeedu gaaraa 45 sano guud ahaan maanta waa naga intaa saaxiibayaal muuqaalkeeni koobnaa uga hadlaynay aqoonta ee nolosha ku saabsan jeerta fadlan haddii aad doonaysaan muuqaalada noocan inaad soo badiyo commentigiina noogu soo reeba janaalkana subscribe saara gambaleelka furo si aan muuqaal walba oo soo gelin ula socoto waxna uga faa'iido muuqaalkana like saar si uu u gaaro dadweynaha kale ugana faa'iideystaan waad ku mahadsantahay daawashadaada